noole kasta ilaahay waxa uu baray tab iyo xeelad uu ku badbaado sidii uu sii joogteeyo waaritaanka noloshiisa. weligaa daawadee ma maqashay sheekada ku saabsan sheekadii shimbirtii kawaanla ahayd ee kaydsan jirtay cuntadeeda? geedqodxeedkan ka buuxa saharahani waxa uu hooy iyo gabood u yahay kumanaan xayawaan oo ku nool halkani. haddaba waa maxayse sababta talfiiqada geedqodxeedyadan looga soo laalaadiyey ee loo suray qalfoofka yaryar ee la qallatiyey ee noolahani yaryar ee idiin muuqda? yaa sidani sameeyey oo ka mas-uul ah muuqaalkani naxdinta le? waxaa jira dilaa dahsoon oo ka shaqeeya hawshani ka socota saxara. waxaa sidani falay ama sameeyey waa shimbirta loo yaqaano shimbirtii kawaanla ahayd ama hilibla ahayd, the Bashi bird. shimbirtani waxay u isticmaashaa qodxahani ay ku salbinayso waxyaha xayawaanada yaryar ee ay soo dabato sidii faashkii kawaanlaha oo kale. waa xeelad ay ku quudinayso kuweeda yaryar muddo toddobaad ah. waa tab iyo xeelad guntigiijis ah. sababta ay qodxahan uga soo laalaadisana waxa ay soo dabato si ay ugu badbaado sabannada adag oo ay u madhaxsato. sidoo kale waxa ay ka taxadiraysaa inaanay si fudud ka helin hilib quutayaasha dhulka dushiisa ka qudhaabanaya. waa qorshe xilkasnimo iyo xariifnimo leh oo ay ku badbaadinayso ukunta dharabta u saaran si aanay cunto u waayin marka ay dilaacaan. weligaa daawade ma aragtay noole ku mataansan sheekadeennan oo noloshiisa sidan oo kale xil isaga saaray? An ingenious solution to making the good times last in the desert.